aha xilligan marka waxaan u arkaa in ra'iisul wasaaruhu wixii la isku ogaayeen oo ka baxay wadankana dib qalalaasa u geliyo aan loo baahnayn kalsoonidii iyo wada shaqayntii iyo niyad wanaagii iyo inaan hore u soconana oo burburiyay ayaan u arkaa mana aqaano talada noocaas cidda kula talisay anagu ma garanayo marka maxaa isleedahay waa ay keentay in ra'iisul wasaaruhu xilligan uu qaato go'aankaasi wasaaruhu waxa kula taliyaa wixii aan isku ogeyn oo aan hore u guushiinay oo aan isku dhaarsanay ee ahaa in wadanka qalalaasa dambe aan lagu celin oo la wada shaqeeyo annagoo weliba waxyaabo badan oo tabashaa ka qabnay dhinaciisa oo wasaaradihii shaqadoodii iyo wax badan oo kamida aan aaminsannahay in prime ministerka iyo xafiiskiisu ay ayagu shaqooyin badan oo wasaaraduhu lahaayeen ay xafiiska prime ministerku qaatay iyo asagoo ay qaateen oo ay qarsoodi ahayn oo prime ministerku oo go'aansaday inuu wasaaradda amniga ka boodo oo yiraahdo taliyaasha booliska toos ula macaamila oo wasaaradda amniga kale ee maamul goboleedada uu ka boodo oo yiraahdo taliyaasha booliska maamul goboleedada la macaamilaya waxa soo dhan ka indhalaabanay annagoo dan qaranka fiirinayna annagoo isla qalaasi oo abuurmin ayaan ka indhalaabanay waan la shaqaynaynay haddana inuu maanta kaligiis go'aan iska gaaro oo qalalaasi dib loogu celiyo marna kuma raacsanin waxayna xumeynaysaa wada shaqayntii iyo geedi socodkii nabadda wax sharciyana ma aha runtii waxaan aada uga xumahay in prime ministerku oo runtii oo dib u socodnimo hawl aan u aragnay inaan dib noo celiyey inuu hadda dib u bilaabo oo habeen walbaba oo qof cusubaan shaqa ka qaaday iyo oo keena xilli shaqa la iska qaadana ma aha waa xilli loo baahan yahay in la gaarsiiyo ummadda Soomaaliyeed ciddii ay doorato marka wuxuu dhiiba lahayd la gaarsiiyahay marka ma aqbalaysaa xilka qaadista oo xilka ma wareejinaysaa wixii aan sharci ahayn wuxuu hadii sharci ahayn ayagoon dhicin la mid yihiin ma waxaad leedahay ra'iisul wasaarihii shalay magacaabay maanta xilkayga ma qaadi karo maxaa sharciga u cuskanaysaa waxaan u cuskanaynaa ra'iisul wasaaruhu qolihiisa wasiirada ayuu hadda ka hor kulmiyey wuxuu yiri xilli kala guuraha lagu jiraa oo doorasho la gelaayo agaasimayaasha iyo waaxyada iyo agaasimayaasha guud iyo cid xil laga qaadi kara ma laho yiraahdo haddii marka sidaas tahay sharciga anagana qabanayo asagana qabanayo sharciga anaga noo diidaayo inaan agaasimayaasha iyo waaxyada iyo dadka naga hooseeya aan sharci xilka ka qaadno noo diidaayo ayaa asagana u diidaayo marka prime ministerku kaligiis wadanka sharci kama aha waxa asaga oo nagu dhaqaayo asaguna ku dhaqmaa looga baahan yahay marka wasiir ma aragtaa in dawladda hadda ay laba garab u kala jabayso oo ra'iisul wasaarihii iyo madaxweynihii la aadayo xilli doorashana lagu jiro saameyn intee la eegay arrimaha doorashada ku yeelanaysaa khilaafyada hadda taagan ogtahay waxa waaye qalalaasa hore la galay wada shaqayna uga soo gudubnay hadda hore inaan u soconna u baahnayn inuu asagu kaligiis go'aan gaaro markaas uu habeen qof xilka ka qaaday yiraahdo weliba anugu ayadoo la og yahay inaan bilow iyo dhammaad aan la shaqaynayo oo aanan marna aanan tala isaga horimaan iyo shaqo weliba waxaas ii dheer inuu caawa bar inta haddana u yeeray wasiiro oo yiri xasan asagaa yiri xilka haleega qaado wasiiro u yeeray markaasuu wuxuu ku yiri xasana xudbe wuxuu ugu yiri xilka aniga waa iga bis taasina wax ka jira ma jiraan caafimaadaan soo aaday waana u sheegay waa inaan caafimaad ku maqanahay waan u sheegay waana fasaxna waa isku ogeyn waana is ogeyn sidaa darteed waxa waaye wax aan ku yiri ma jiraan qodobka labaad waxa waaye haddii anugu xilka anugu aan rabo inaan ka tago ana iscasili kara marka prime ministerka waxaa looga baahan yahay in uu mas-uul waaye waxa uu sheegayana ay wax saxa noqdaan waxaa looga baahan yahay dhaqanka sharciga asaga uu leeyahay ku dhaqmo inuu asaga ku dhaqmo laakiin wax siinaya inuu kaligiis asagu wadanka sharci yahay inta kale ayna sharci ahayn wax siinaya ma jiraan oo kor iyo hoos cid uu ixtiraamayo aysan jirin wax kaligiis siinaya ma jiraan dastuurka lagu kala dambeeyaa sharciga lagu kala dambeeyaa marka ra'iisul wasaaruhu waxaa laga rabaa in korna waa laga jiraa hoosna waa laga jiraa oo dadka ixtiraamo oo la tashado go'aanada hadda oo qaatay oo dhan oo ka qaatay yani arrimo khuseeya wasaaradda cid uu kala tashado ma jirto cid uu wax weydiiyo ma jirto taasina waxa waaye waxaan uga indhalaabanayna annagoo isla wadanka qalaasa cusub iyo dhibaato cusub yuusan gelin bal ha lagu caawiyo wixii suuragala saasaan ku socona laakiin haddii hadda ay dhacday in uu garabsiintii iyo dhalaabashadii uu u bedelay inuu qofku doono dardaro waxaasi wax socon kara maaha kaasi waxa uu ahaa